toddobadii hablooduu lahaa mar keliya laga wada dilay oo nafta laga wada qabtay uu iska sabray toddobadii wiiluu lahaana mar keliya israaceen uu iska sabray beerihii iyo tijaaradii iyo xooluhu lahaayoo dhan mar keliya laga qaaday uu iska sabray markaasaa jidhkiisii walibana xanuun lagu riday uu iska sabray xanuun nuuceeyaa gaadhay waxaa la yidhi jidhkii intuu dhammaaday harigga iyo lafahaas ku dheggan bas markaasaa wax ehela waxa u soo hadhay xaaskiisii markaasay qaraabadiisii ku yidhaahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama annagu aan kaaga baxno may anaa iniga fudud oo iniga tegaya buuri way tukubisay bannaankaabay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culummada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tegaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqayn jirtay aqalladay ka shaqayn jirtaa la yidhi wixii mushqaayad la soo siiyo intay ugu soo iibiso khubs iyo idaam ayay markaa nebiga ugu keeni jirtay geedka hoostiisa markaasay ku tiraahdaa ayuubow xanuunkan halkaa ku gaadhsiiyey in ummaddii iyo dadkeennii ay bannaanka inoo soo tuuraan nebi ducadiisa la aqbala ayaa tahee ilaahay maad noo barida ha kaa qaada xanuunkan oo dadka ha ku dhex noqonne markaa buu ku yidhahdaa 70 sanaan barwaaqo ku soo jirnee ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yidhi barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysanno ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacda ayaa badan midkaa badan nicmada badan marka ambiyadu nicmaday eegeen mar walba deedna muncimka markaa way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen markaa buu xaaskiisa ku yidhi 70 sanaan barwaaqo ku jirnee ma muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha ka mid a labadii dad isaga ugu dhoweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yidhi mid baa yidhi markaa war u dhowaani mayno xanuunkiisa inuu nagu soo tacadiyaan ka baqaynaaye malaha dembi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin eraygaasuu markaa nebi ayuubuu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurguurtay deedna meeshuu ku xaajoonayay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaabuu uga dhaqaaqay halkaabuu markaa ku ducaystay baa la yidhi ducadiisana waatan qur-aanka ilaahay noogu sheegay fii suurati alambiyaa waayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya adurru wa anta arxamu arraaximiin ayuub calayhi salaam rabbigiibuu u dhawaaqay oo rabbigiibuu la munaajoodu u qayla dhaan dirto markiiba wuxuu yidhi ilaahu aniga dhib baa isoo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista ka ugu naxariis badan baa tahee ilaahu dhibkaa iga qaad buu yidhi ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa la yidhi halkii uu joogay baa lagu yidhi lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay oo xanuunsanaa awoodda jidhkiisa ku jirta ee dhulka markuu harraatiyey biyo uu kaga keeni karaa waa awooddee يعني أدقو أسبابتي لك هالي ويان أنا كابيها صو صاريني لقت هذا يرضى قاجي بس أسبابتن الدوية نركينا أودن نظام كإلهي بكون حجر أسبابتن سيدا جرك بني آدم قال روح ذا يقول حجرته أيا أسبابتن الدون قادر كيسان نظام كإلهي بكون حجرة مركا نظام كإلهي إيش نما قبنا يسو قدرة إلهي بعالم كان معمول يسلوكتي بالنبي أيوب سعود قاجيي لولكو كعليي لبدا لغو دخدود بيه كصوبخين با ليدي لبا إلودو بيا إلنا waxaa la yiri ku maylo ilna waxa lagu yiri aab oo maylay jirkiisi waa caadi oo cabay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhanba banaanka uga soo baxay oo soo kacay mar kaliya xaaskiisa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tiri oday ayuub la oran jiray oo bukaan ahaa oo muddo dhowr iyo 10 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaaladaan ugu maqnaayo oo aan u shaqo tagay miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaaye formigiisii baad leedahay markaasuu yidhi ayuub aniga buu ka yidhi ana ayuub kii aad kaga tagtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii
ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaalad wax daa'ima maaha